mid ka mid ah xilli roobaadyada ayaa bilowday caasimadda iyo gobollada intaba, laakiin saameyntiisa ayaa ah mid muuqata marka la eego halka ay ku nool yihiin dadka danta yar. Halkani waa waaxda Janaal Daa'uud ee degmada Wadajir. Waxaa dumay guryo badan oo qulqulka biyaha roobku ay saameeyeen. Dadkani waa dan yar, waxaana ay ii sheegeen in 20 sano ka badan uu dhulkan biyo degeen ahaa, tiro ka 4 jeer tanna ay guryuhu dumeen, laakiin hadda saameynta ugu badan ay ka dhalatay. Cabdiqani Warsamo Barre oo dadka deegaanka ka mid ah ayaa inoo sharaxaya xaaladda xaafaddu hadda ay ku sugan tahay iyo saameynta roobka. Dhibka aad hadda indiina ku aragtaan oo meeshan ka muuqdo waa wadadan jajaban. Dhibka gaaray gurigan waa u jeedaan oo inuu dhinac ka burburo waa u jeedaan. Guryo badan oo kan la mid ah baa meeshan wadadan ayada ku yaalo oo burburay oo qaar dabaqay yihiin. Dhibaatadaas waxa keenay oo kalifayna waa wadada nidaam ma lahan oo xilligii kala dambeeyay. Hadda waxaan u maleynayaa intii wadadan ay go'day muddo 4 joor 5 joor in ka badan baa guryo ku dumeen. Goobtan biyo degeenka ah barisamaadkii waxay ahayd garoon kubadda cagta lagu dheelo. Burburkii dawladnimada Soomaaliya kadib, maamuladii soo maray degmada Wadajir ayaa carrakaawo ka qoday, waana taqasabtay in biyaha deegaanku halkan ay ku hooraan. Axmed Maxamed Muude oo 90 jir ah, kuna nool guri ku dhow halka biyo fariisinka ah, ayaa inoo sheegaya saameynta roobka ka dhalatay iyo qudhiisa sida gaarka ah saameynta ay ku yeelatay. 90 jiraan ahay, amarkan Ilaahay ayaa keenay. burburkii ilaa jidhahdan gurigaan ku noolaay. Guriga waxaa iskale nin Xasan Jabaan ilaa iskale, amarkaagna waa u dhacay. Sariir xagga taala, xagga sariirteeda xagga taal. Guri cida ijaar ugu jirtay. Ilaahay amadle waalid soo jiid musna igsoo bixiyay. Ali soo fadhiisay darbiga la saaray. Darbiga biyaha uu soo koray hadda banaanka leeyday. Meelo badan oo caasimadda ah hadda waxaa buux dhaafiyay biyaha roobka Muqdisho ka da'ay. Maamulka gobolka Banaadir oo xil uu ka saaran yahay wax ka qabashada nadaafadda Muqdisho ma uusan sheegin tallaabo cad oo qulqulka biyaha wax looga qabanayo. Ilaa hadda maamulka gobolka iyo kan degmadu ma aysan tagin sida dadka deegaanku ay noo sheegeen halka waxyeeladan ay ka dhacday iyo saameynta roobka oo guryahan ay dudumeen. Dadka deegaanka ayaa dalbanaya in qulqulka biyaha wax laga qabto. Waxaan maamulka ka codsanaynaa gobolka iyo degmada waxaan ka codsanaynaa in il gaar lagu soo fiiriyo wadadan si wax looga qabto. Hadda ka hor waa la duugay, waxa lagu duugay qarash badan lagu bixiyay. Haddana sida aragtaan hadda u egtahay dhibkana waxa keenayo waagi dawladda Maxamed Siyaad Barre dhulkan tubooyin ku jiray. Tubooyinkii waa la baxay, meelay aadeen ma la yaqaan, biyo hadda meelay aadaan ma lahan. Magaaladii oo dhan biyaheeda halkaan ay marayaan. Tani ka duwan dhacdo kasta oo aad goobjoog u ahayd sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo aad arkayso dhibaatada hadda lagu qabo roobku iyo waxyeeladiisa halkan oo ah xaafadda Buulixubay ee degmada Wadajir, waana qayb ka mid ah saameyntan roobku halka uu geysto. Sida aad arkayso dadku noocan oo kale ay u adeegsadaan. Sanadihii ugu dambeeyay waxaad ogeyd dad barakaca oo ka cabanaya roob iyo saameyntiisa, laakiin hadda xaalku sidan waa uu ka duwan yahay oo isha ayaa ku macallina. Cali Aadan Muumin, goobjoog, Muqdisho.